madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha kale ee Villa Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay dadaal xoog leh ku bixinayay in laga hortago qorshaha guddiga doorashooyinku ay isugu yeereen xildhibaanada si loo dhaariyo. qoraal ka soo baxay xafiisyada madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa loo arkayay inay ahaayeen kuwo ay ka dhaxadlayaan xubnaha Villa Soomaaliya. laakiin waxaa muuqata dadaalada kooxda Farmaajo iyo warqadaha ka soo baxay xafiisyada Baydhabo iyo Dhuusamareeb inay biyo qabow ku shubeen daneeyaasha doorashada Soomaalida gaar ahaan beesha caalamka. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ayiday jadwalka cusub ee uu soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal kaasi oo dhigaya in 14 Abriil la dhaariyo xildhibaanada cusub ee labada aqal. sida ku cad jadwalka guddiga FID 16 bishan ilaa 23 bisha ayaa la qorsheeyay in la soo ururiyo dukumeentiyada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyadoo 24 ilaa 29 la qorsheeyay in la hubiyo dukumeentiyadaas. safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa niyad wanaagsan ka muujisay fulista jadwalkan cusub ee soo xareynta xildhibaanada la doortay ee baarlamaanka 11aad iyo dhaarintooda kaasi oo ay ka hor yimaadeen dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo iyagu soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka. sidoo kale waxaa qoraalka safaaradda Mareykanka ee lagu taageeray jadwalkan cusub lagu sheegay in dhaarinta kadib ay la kulmi doonaan xildhibaanada cusub ee Soomaaliya. waxaan rajaynaynaa inaan la kulanno xildhibaanada cusub ee Soomaaliya kadib markii la dhaariyo 14 Abriil waliba xilli ku habboon ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo la soo dhigay Twitter-ka. shalay bay ahayd markii ay safaaradda Mareykanku sheegtay inay garowsan tahay in dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay ku dhameystireen doorashada golaha shacabka waqtigii loo igmaday iyada oo nasiib darro ku tilmaamtay in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale Hirshabeelle ay seegeen waqti kale oo muhiim ah. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka beesha caalamka ee sida dhow isha ugu haya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo dhameystirka doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer uu ku yimid dib u dhac. xulashada wararka ayaa fahamsan in madaxtooyada Soomaaliya ay dadaalkii ugu badnaa ku bixinayso in go'aanka guddiga doorashooyinka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha la carqaladeeyo iyadoo looga gol leeyahay in Fahad Yaasiin oo doorashadiisu weli aysan aqbalin guddiga doorashooyinku si fudud uu ku soo galo baarlamaanka. xogo aan helnay ayaa sheegay in kooxda xafiiska Roble ay ku dadaalayaan in Fahad Yaasiin iyo kuraasta kale ee lagu muransan yahay laga hor istaago inay qaataan shahaadada caddeynta xildhibaannimada. si kastaba sida uu qorshuhu yahay 14 Abriil xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qabanaya xafladda dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 11aad.